Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkayga Ogaalka Dunida. September 25, 2008 markab weyn oo xamuul ah oo lagu magacaabo MV Vine ayaa ka baxay dekedda Nikolaevia ee dalka Ukraine, isaga oo u sii jeeda deked ku taalo dalka Kenya. Markabka waxa uu siday hub aad u culus oo ku jiray 33 taangi oo noocoodu yahay T-72 ah, gantaalo, rasaas iyo hub kala duwan oo ciidan. Markabka waxaa lahaa shirkadda Ukraine ah, balse waxa uu u sii socday dalka Afrika ah. Weerar lama filaan ah. Markabka MV Vine waxa uu si caadi ah uga socday biyaha caalamiga ah ilaa uu gaaray meel u dhow xeebaha Soomaaliya, halkaas oo koox burcadbadeed ah oo wato doomo dheereeya iyo qoryo culus ayaa weerar ku soo qaaday markabka. Shaqaalaha markabka uma diyaarsanayn wax ay isku caabiyaan ah. Burcadbadeedda ayaa si dhaqsi leh u qabsatay markabka iyaga oo ka kaxaystay shaqaalihii 21 qofood ahaa ee saarnaa. Sirta ah ee la ogaaday in uu markabkii la afduubtay uu si taangiyo dagaalo iyo hubab fara badan. Xiiso weyn ayaa kacday dowladda Mareykanka iyo tan Ruushkaba. Labaduba waxa ay muujiyeen walaac, waxaana la tuhunsanaa in hubkan uu u socday Suudaan ama koox maleeshiyeed ah. Inkastoo waraaqaha rasmiga ah ay sheegayeen in Kenya loo waday codsi lacageed, kooxdii afduubtay markabka waxa ay dalbadeen $15 milyan si ay u sii daayaan markabka iyo shaqaalaha. Waxa ay sheegeen in aysan aqbalaynin wax ka yar maadaama ay ogyihiin qiimaha hubka saaran markabka. Dagaal oo ka socda Mareykanka, Ruushka iyo dalal kale ayaa dul wareegay halka uu markabku ku xirnaa. Waxaa la abuuray xaalad degenaansho la'aan ah oo mararka qaar keentay cabsi ah in markabka la weeraro ama la burburiyo haddii halis gasho in hubkaas ay gacanta u gelin koox xagjir ah. Dhibaatooyinka shaqaalaha. Shaqaalihii markabka saarnaa waxa ay la kulmeen cabsi, rafaad iyo walaac naf ah. Mid ka mid ah shaqaalaha, kabtaankii markabka, waxa uu ku dhintay wadne xanuun dhowr maalmood kadib afduubka, taas oo muujisay xaalad halis ah ee ay ku sugnaayeen. Wadahadallo qarsoodi ah ayaa socday muddo 4 bilood ah, iyo dhowr jeer ayaa la isku dayay in lagu xalliyo si aanan xoog ahayn, balse burcadbadeeddu waxa ay sii adkaysteen go'aankooda. Lacagta ah. Dowladda Ukraine iyo Kenya waxa ay isku fogaayeen in ay bixiyaan madax furashada. Lacag bixin la sheegay bishii January 2009, afduubayaashii waxa ay markabka iyo shaqaalihiisa ku sii daayeen meel u dhow xeebaha Hobyo kadib lacag madax furasho ah oo lagu qiyaasay $3,200,000 in loo bixiyay. Lama xaqiijin cidda bixisay lacagtaasi. Cabsidii ka dhalatay dhacdadan waxaa la ka dhigtay mowjadii burcadbadeedda Soomaaliyeed. Wadamo badan ayaa bilaabay in ay maraakiibtooda ku ilaaliyaan ciidan hubeysan. Waxaa bilaabmay howlgallo caalami ah oo lagu difaacayo maraakiibta maraya Soomaaliya. Saameynta mustaqbalka. Afduubkii MV Vine wuxuu dhaliyay
isbedelo weyn oo ka yimid sida caalamka u arko khatarta. Burcadbadeeda waxaa laga dhisay saldhig badeed, waxaa la diyaariyey qorsho la isku kaashaday, waxaana dhacdo ilaa maanta lagu xasuusto. Inta dhacdadii ama sheekada halkaas bay inoogu egtahay. Haddii aad nala soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa, aniga ilooweyn inaad subscribe inoo saarto, like inoo dhahdo. Haddii aad tahay maalintii kugu horeysay aan soo booqanaysid, aad gambaleelka furato. Inoo iyo maalin kale oo xiiso leh. Goodbye.